arrintaas wax ka jira ma jiro. cabdikariin sheekh muuse dawladda dhexe ee soomaaliya ayaa isagoo wadani soomaaliyeeda oo muqdisho jooga calanka hoostiisa ku garbaduubtay dawladda etoobiya u dhiibtay oo cadow u ahayd. haddana wax dowra kuma lahayn, bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd negativa oo xam badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dawladda etoobiya inay lagu sii hayo xabsiga ilaa ay u ekaato inay ama iyadu soo daysay. sidaa daraaddeed baa xam badan jirtaa inay dawladda etoobiya soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inay ra'yigeedu ahaa. marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dawladda federaalka soomaaliya ay ku lahayd sii deynta qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin. door negative bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga cagsi weeyaan. wax dowra kuma lahayn. dawladda dhexe dawladda federaalka etoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayey. marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn. doorar negative oo hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaaye lagu qurxiyo inay soo daayeen ama la hayo. maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dawladda federaalka soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dawladda etoobiya in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax? marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha etoobiya ee aad sheegtay in lagu sii daayey qalbi dhagax, ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu uu heli lahaa? way jireen mas-uuliyiin soomaaliyeed baa jiray. madaxweynaha jubbaland gobolka jubbaland dawladda soomaaliya ayaa kamid ahaa. waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo adisaba jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabo aana jeclayn yaa iyagana door ka geystay oo united nation kamid tahay. waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo qalbi dhagax lafahaantiisa, cadaadiskaas oo ah in isaga lafahaantiisa uu afkiisa ka sheego in dawladda soomaaliya ay kaalin ku lahayd sii deyntiisa sida wararka aanu ku helayno, ama mid dhinaca kale ah oo ah in uu ka aamuso arrintiisa oo aanu ka hadlin. arrintaasi ma jirtaa? t b l f rag ka tirsan oo wardoonka ah yaa cadaadis ku sameeyey cabdikariin inay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda etoobiya gudaheeda, gobolka soomaalida iyo dawladda dhexe iyo dawladda soomaaliya iyo isriixriixa iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya cusub ee etoobiya gruubkiisa. marka inay t b l f wadoonkeedii hore rag ka tirsan baa yaa in hadlo oo saxaafadda la hadlo u diidanaa. inta sii daysay ra-isul wasaaraha etoobiya inay qoto u diidanaa. hayeshe arrinta hadda uu ka dhex baxay iska ra-isul wasaarahana kasoo baxay amarka lagu sii daayey. marka dagaalo badan oo qarsoon oo aamusan baa socday. intaasna hadda ka xusahaya. ma laga yaaba isaga lafahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay sii deyntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn? wuu hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo. waxaana jeclahay inuu voiceka ka hadlo kolka u horeysa haddii aan la yidhaahdo. marka wuu caddayn doonaa markuu oo meeluu ku xasilan yahay uu tago beerihiisa inuu soo salaamo, inuu xorriyadiisii oo buuxdo uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa ah. taas ayaa u bilaabmaysa. haddana waa xor oo shir jaraa'id hadda uu ku si official lagu sii daayey buu qiray. safaradeedana waan geli karaa. marka mar dhow idinla wadaagi doona haddii aan la yidhaahdo markii meel mucaayana uu tago. waayahay, haddii aan arrintaasi ka baxno, waxaa jira adinka lafahantiina eedeymo la idiin soo jeedinayey oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dawladda ama maamulka soomaalida etoobiya oo la qorsheynayay 93 inay noqoto magaalada diridhaba aad arrintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii soomaalida ay kasii baxayso. arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa? waxba kama jira arrintaas. baarlamaankii horeeyey ee soomaali dooratay 93 bishii January kulankoodii horeysay dirdhaba ku qabsadeen. magaalama waxay u doorteen dirdhaba. wasaarihii etoobiya berigaa ka codsaday in laga inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo. baarlamaanka soomaalida uu ka diiday. berigaa u jira xuseen la odhan jiray baa isna soo diray fax oo leeyahay dib u dhigay intaan khilaafaadka isku haysadka aan dhinac u dhigayno. waa laga diiday. madaxweynihii etoobiya oo berigaa mala zinaawi ahaa baa soo diray. waa laga diiday. wasaarihii etoobiya iyo
cabdilmajiid xuseen oo wasiirka soomaalida ee ku jira dowladda dhexe Ethiopia helicopter soo qaatay shirkii oo socday kasoo duldegeen waxay ka codsadeen in muddo bilo ah caasimada ku meel gaar la geeyo godayna iyaga soo jeediyay in si ku meel gaar la geeyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada Dirdhawa xal loo helayo sidaas goday ugu geeyay waa taariikh aan waxba ka jirin xildhibaanadii joogay ay la joogan kugu yeeri karaa xildhibaan Riyaale oo reer Dirdhawa oo shirka fadhiyay oo golihii baarlamaanka kamid ahaa oo golihii wasiirada kamid ahaa oo markii dambe gudoomiye ku-xigeenka gobolka noqday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yidhaahdo marka taariikh cad oo la ogyahay weeye oona laftaaka dhulka Soomaalida ay ka tanaasuleysa ma jirto hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia ku jira in la xoreeyo